بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka barnaamijkan gabi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha dhanka qaanuunka ee ku gadaaman aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland tani markii uu soo baxay go'aankaasi oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa falcelin kala duwan ay ka timid ururo caalami ah wadamo kuwaasi oo si weyn u cambaareeyay arrinta Israa'iil ay ku aqoonsanayso Somaliland waxaana ay ku tilmaameen mid lid ku ah madax banaanida dhuleed iyo tan qaranimo ee Soomaaliya Somaliland waxay ku doodaysaa in ay la soo laabatay 1991 madax banaanideeda isla markaasna ay xaq u leedahay inay raasato aqoonsi laakiin dhanka qaanuunka maxay yihiin caqabadaha ku horgudban maxay yihiin fursadaha ay haysataa Somaliland Soomaaliya oo qaramada midoobay iyo midowga Afrika midowga Yurub jaamacadda Carabta ururka Islaamku dhamaantoodba ay u aqoonsan yihiin in ay tahay hal wadan sidee arrintan dhanka qaanuunka ugu difaaci kartaa warkan weyn ee soo baxay haddaba arrimahaasi iyo waliba falaqayn dhanka qaanuunka ku saabsan oo aynu ku wareysanayno khabiir ku takhasusay arrimaha qaanuunka ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa waxa qadka magaalada Hargeysa toos imika ugu jira Guuleed Dalfac Guuleed waa garyaqaan arrimaha qaanuunka ku takhasusay isla markaasna aqoontiisu ay tahay Guuleed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga iyo waqtiga aad noo siisay aan ku bilaabo su'aashayda arrintan aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland dhanka qaanuunka marka laga eego sidee u aragtaa Axmed mahadsan tahay marka koobaad aqoonsigu marka laga hadlayo qaanuunka caalamiga gaar ahaan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu dooda badan ee dunida ka jira sababtoo ah xeerarka caalamiga ah si cad oo weyn uma qeexaan hababka lagu helo dowladnimada ama statehood-ka lagu yimaado waxa marka dood xagga cilmiga ah ka jirta aqoonsigu doorka uu ku leeyahay dowladnimada oo macnaheedu tahay dalku haddaan aqoonsi haysan ma dalba mise maaha haddii se aqoonsi helo ma dalnimada baa buuxsantay mise waxaa ka dhigan falsafadahaas aqooneed iyo aragtiyahaas way jiraan laakiin marka si guud loo hadlayo waxa la isku raacsan yahay qaanuunka caalamiga in marka daldal ictiraafayo uu yahay arrin siyaasi ah oo yaala xukuumadda dalkaasi leeyahay inuu dalka kale ictiraafo iyo inaanu ictiraafin labadaba wadawadaadna inta badan arrimaha ictiraafka waxa loo riixaa ay u riixan yihiin siyaasadda waana sababta aanay ictiraafka u bixin karin golaha baarlamaanadu isla markaana aanay maxkamaduhu u bixin karin cidda qura cid ictiraafi karta ay tahay golaha xukuumadda ee dal kasta waa gartay dabcan wuu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Gideon Saar haddii markaa ay sidaasi ay tahay arrinka Soomaaliland waa ka duwan yahay dalalka is aqoonsada oo kale waynu la soconaa Ethiopia Eritrea kala baxay sidoo kale South Sudan iyo Sudan way kala baxeen laakiin dowladda Soomaaliya Muqdisho waxay leedahay Somaliland waxay ka tirsan tahay Soomaaliya Somaliland waxay leedahay 1991 ayaynu la soo laabanay madax banaanideeni marka labadaas arrimood sidee isku qabanayaan marka dhanka qaanuunka arrinka la xiriira Soomaaliya mowqifkeeda ama dal kasto diidan dal kale in la ictiraafo oo sheeganaya waa mowqif dabcan dalkaasi taagan yahay haddii aanay Soomaaliya oran lahayd hadda ka hor ama ay tiraahdo Somaliland annana waa aqoonsan oo fasaxnay marka Somaliland aqoonsi may raadisay dunida oo dhan hal mar bay wada aqbal lahayd in qaramada midoobay bay ka tirsanaa lahayd marka sababta Somaliland aqoonsi u raadinaysay dalalka dal uga jahaysa marka horeba oo diidmada xagga Soomaaliya ka imanaysa darteed oo ay Soomaaliya leedahay ma doonino in la aqoonsado aqoonsiyada caynkaas oo kale markay Somaliland heshay wuxuu saameynta weyn u leeyahay inuu dalka aad xiriirka Somaliland la samaysatay ama dalka la aqoonsaday la samaystay inay xiriirkooda siyaasadeed xoogaysto diplomatic relationskoodu noqdo mid ku saleysan labada dal dalalka kale aan saameynaynin iyo haddii dalalka la aqoonsan uu koraan oo farabataan matalan dalka Kosovo kale oo weli Serbia haysato qaramada midoobay xubinka ma aha laakiin 100 dal in ka badan baa aqoonsan 100 dal ka aqoonsan Kosovo waxay ka faa'iideysaa inay xiriir ganacsi la samaysato inay xafiisyo ka furato in xiriiradaasi dabadeedna waxay ka tarisay socodka dadkooda ay ka dheefaan marka aqoonsiga caynkan oo kale ahi wuxuu faa'iido u leeyahay waxa weeye labada dal ee aqoonsaday ayaa xiriirka iyaga ka dhaxeeya hadba sidoo anfacoodu noqdo ayay faa'iido ku noqonaysaa iyo haddii dalal kale soo raacaan tiradu badatona dalka la aqoonsaday mar walba tirada badatay la aqoonsaday haday u badatona faa'iidada u badan marka soo tiradu yartahay caqabada ku badan
marka macnaheedu waxa weeyaan Somaliland dhanka qaanuunka waxaa kaga fiican siday aaminsan tahay adiguna hadalka hadda aad u dhigtay kulamada dalalka ay bataan faa'iidadeeda badanaysa ayadoo laga eegin dhanka qaanuunka saddex sababood bay ku badanaysaa mid waxa weeye marka dalku aqoonsado xiriir baad la yeelanaysaa taa macnaheedu waxa waxba kala iibsanaysaan horumarkii baa kala samaysan kartaan dadkaaga waa u socon kara marka faa'iido ka imanaysa talabaadna waxa weeye dalalka kale ayaa soo dhiiran kara oran kara okay hadii dalkan waa ictiraafay dalka ku aqoonsaday dalka la saaxiibka ah inuu ku soo dhiiran karaan saddexaadna waxa weeye cadaadis saari kara dalka ku haysta oo dalka aad is haysataan haddaanad aqoonsiba haysan waxa uu kalsooni ku qabi karaa inuu isku dayo inuu maruu gacanta dib ugu soo celiyo anata Soomaaliya inta badan ku dadaalaysa laakiin hadda aqoonsi heshiis culayska aad lahayd ayaa xoogaysanaya marka dalkii kale ee iska soo horjeedeen aqoonsiga diidanaa kiiska Soomaaliland oo kalma kala jooga Soomaaliya marka ku soo jooga Serbia oo kale waxa ku dhacaya culays baa fuulay marka dhinac bay ka tahay pressure weyn oo soo korto Somaliland marka laga hadlayo xiriirka iyaga iyo Soomaaliya ka dhaxaynay waa gartay dabcan Soomaaliya iyadoo aan gacanta ku hayn ama aysan ka talin Hargeysa iyo Berbera ama Burco ama Boorame ayay waxay ku doodaysaa Soomaaliya ay ka mid tahay Somaliland arrinkaasna doodo badan baa ka taagan dhinaca Soomaaliya markaynu eegno ama xitaa Soomaaliya intii Israel ama wadamo kale Somaliland ay gelin lahayd waqtigaasi miyaysan ku habboonayn in Muqdisho ay geliso ama dowladda Soomaaliya ama Soomaalida dhexdeeda si haddii go'aankaasi uu u noqdo mid lagu kala bixi karo lagu kala baxo intii mabda'an la hubin waxa ka imaan kara waqtigaas Somaliland inay geliso iyadoo 35 sano halkaas ku soo jirtay muddo kale oo dheeraada ma sugi kartaa mid waxa weeye muddadu saad sheegtay way dheertay hadda waa dhowr iyo 30 sanadood saamaynadu waxa weeye isku daygii ay Somaliland isku dayday in arrinta Soomaaliya kala dhamaadaan bilowday 2012 uu guuleysan waayo 10 sanadood bay maraysaa 12 sano 13 sanadood bay maraysaa marka Somaliland hadda dhinaceeda ka eegtay waxay aragtaa inay isku daygii ay rabtay in Soomaaliya intay isfahmaan ay kala baxaan inuu shaqeyn waayo waxaana aad u aragtaa in Soomaaliya qabto oo Soomaaliya ana serious ka ahayn arrinkan ee waqtiga ka rilayso marka taasi waa haddii Somaliland wadiis waxa leeyahay waa isku daynay marka waxaan wax shaqeynaya ma aha taas waa mid labaad mar walba Somaliland ictiraaf soo koro wax faa'iido u soo koray mar hore kuma khasaarayso waayo waa culays dheeraad ah heshay waa itaal u soo kordhay waa cudud dheeraad ah helayso waa cod dheeraad ah helayso saaxiibada caalamka xitaa marka wada hadalladu jireen Somaliland mid kamid ah caqabadaha haystay waxa kamid ahaa Soomaaliya saaxiibay leedahay saaxiibada ay leedahay waxay taageerayeen qadiyadeeda say dhinaca midnimada iyo waloolini marka Somaliland waxay u baahan tahay inay saaxiib hesho culayska dhinaceeda kala rara marka Somaliland marba kuma khasaarayso inay ictiraaf hesho faa'iido helayso marka laga yaabo inay tahay qadiyadeeda rabtay siyaasiyiin iyo diblomaasiyad ahaan faa'iido waa gartay waa yahay dabcan shaqadaadii weeyaan qaanuunka adaa iga badiya laakiin marka meelaha ka akhriyay aqoonsiga qaramada midoobay in calankaaga la geeyo wuxuu u baahan yahay golaha guud ee qaramada midoobay 190 dhowr ka kooban inay aqbalaan 3 meelood oo labo golaha ammaanka ee qaramada midoobana 15 xubnood 9 kamid inay ku aqbalaan oo aan la helin codka diidmada qayaxan ilaa intee la eg bay ku guuleysan kartaa Somaliland inay heerkaas gaarto mise u diyaarsan tahay rajadiisu maxay xagga qaanuunka markaad eegto maxay Israa'iil arrintaas ka geysan kartaa gacana waad sheegtay kamid naqashada qaramada midoobay waa wada dheer oo u baahan in wax ku dhow unanimity ama wax iskaga dhoweyn dalalka oo dhan ku ayideen dal fiit wali hinaan ku diidanay midna hadda Kosovo kale waa heli kartaa tirada golaha guud laakiin waxa dhibtu ka hortaagan tahay golaha ammaanka oo ay Ruushka aan ogolayn inay aqbalaan waddan fiito saaraya marka waa laba arrimo kala duwan kamid naqashada qaramada midoobay wada dhow maaha waxaana qabaa Somaliland waa ogtahay laakiin se aqoonsan heliduna waa wax kale oo la xiriira inaad statuskaaga ama meeqaamkaaga kor u kaco marka waa talaabo kaliya bay Somaliland hadda heshay kun talaabo kalena way harsan yihiin laakiin aragtidu waxa weeye in talaabo loo qaado la urursado waxa la heli karo xaabadaad wada urursatid dabadeedna itaalkaaga xoogaysto itaalkaas laba midba uu ku tari karaa hadhowto inaad heshid tirada aad sheegtay tira ku leeg oo qaramada midoobay ku tagtid iyo inaad Soomaaliya cadaadis ku filan fuulo marka tirada ku aqoonsanay badato marka dambe la yiraahdo dawladda kaleysaan arrinka iska farmay iska fasaxdo markaas enough pressure ay Soomaaliya marka dambe aqbasho xaqaayiqna way keeni kartaa marka Soomaaliya way ogtahay inay inta tii koobaad ahayn dabcan dalal badan oo saas oo kale baa jira ku safar jira Taiwan baa kamid ah
dalal intay aqoonsi heleen laakiin qaramada midoobay ka mid noqon kari waayo laakiin talabkeedu ku raadsan way dhaantaa wayna ka fiican tahay inaad tahay waxba haysan sidii markii hore Soomaaliland ahayn markii hore ahayd intaan aqoonsiga dalkan helay waa gartay dad badan oo arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ku takhasusay oo la xiriirnay waxay yiraahdeen si kastoo ay tahay Israa'iil wax badan way ka caawin kartaa Somaliland inay albaab u furto marka arrintaasi xagga markaad eegto xagga qaanuunka iyo shuruucda ma kula muuqata inay u fududeyn karto albaabo in u gargaraacdo Israa'iil iyadoo la ogyahay saameynta ay leedahay wadamada reer galbeedka Mareykanka ay ku leedahay sida kula tahay arrintaasi guuleed waxay labada faa'iido leedahay baa midkood tahay madaxweynaha xiriirka dalka la sameeyay isaga laftiisa wax ka dhiibtid wax kaaga soo kordhaan mid labaadna waxa weeye in albaabka garaacayso laba waxbood ka faa'iidi kartaa waxyaabaha qaar kood xagga horumarka iyo dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada iyo aqoonta aad ka faa'iidi kartaa ta labaadna waxa weeye in Israa'iil dalalka ay la saaxiibka tahay xiriirka leeyihiin in Soomaaliland aqoonsadaan dadna aqoonsiga Soomaaliland u kordho marka ma hadda la is aqoonsaday Soomaaliland waxay ka hadlaysaa waxa weeye in wax kastoo faa'iido ay ka heli karto ka hesho tusaale ku siinaya Taiwan oo kale Soomaaliland markay xiriirka sameeyeen Soomaaliland cadaadis badan baa ku fuulay waxbay ku weydii waxna way ku heshay waayo cidii Taiwan la saaxiibka ahayd waxay noqotay inay la shaqeyso Soomaaliland cidii ka soo horjeedin in Soomaaliland cadaadis saarto haddana saas un bay noqonaysaa cidii saaxiibka la ahaydna Soomaaliland way la shaqeynaysaa cidii ka soo horjeedina way ka soo horjeedaysaa mar walbana Soomaaliland u taala waxa weeye shacbi dawladba sida u badin lahaayeen faa'iidada khasaarahana u yareen lahaayeen labada ay isu barbardhigi lahaayeen waa gartay 24 saac la soo dhaafay sida hordhac barnaamijka aan ku sheegay wadamo badan oo Soomaaliya xubin ay ka tahay ayaa waxay ku adkeysanayaan madax banaanida Soomaaliya iyo dhulka inay tahay mid aan lagu xadgudbi karin sida hadalka ay u dhigeen bayaanada ay soo saareen intaasi Muqdisho ma caawin kartaa mise waxa ka hor imaan kara arrimo qaanuuniya oo arrintan dhibaato ay ka soo gaari karto masaladan intii qaanuunka tahay ka badan intay siyaasadda tahay waayo wax markuu ku xiran yahay xukuumadda qaybta fulinta dalka kale waana jirin procedure sharci loo qorayo ciidiin karnaqayso oo oranaysa ama Soomaaliya saxsan hal raaco ama Soomaaliland baa saxsan oranaynin waa siyaasad adeyn aftaday oo go'aan fulineed bay ku xirtay dadkan hadlaya dawladda hadlaya marka la isugu jiraan qaar waa formality مثلا Soomaaliya dal waxay ka mid tahay urur goboleeday ka tirsan tahay urur goboleedaasi waa inay magaca ilaaliyaan waayo xubin bay ka tahay laakiin shida weyn ma qabaan ma kala xiiseynayaan mana kala jecla waxa laga waraaqda qoraan kadib inaanay waqti badan iska gelin dalka qaar si dhaba dani uga jirta arrinta Soomaaliya inay la soo saftaan bay diyaar u yihiin oo socdaan waxa kamid ah Masar iyo Turkiga dalalka sida tooska shaqadan u galaya laakiin dalalka kale warbixinada ay soo saaraan ama cabaareynta ama inay yiraahdaan midnimada Soomaaliya waa la ilaalinaya wax weyn oo macno ay sameynaysaa ama jirto ama culayska ama xaqaaqiga waxay ka bedelayso marka Soomaaliya cid wax u tari kartaa waa cid ficil la timaado Soomaaliland cid wax u tari kartaana waa cid ficil la timaado laakiin statements ka caynkaas oo kale wax iska badin koo formality oo dalka marka laga codsado uu iska soo saaray wax dhici karta Britain inuu ka noqdo Soomaaliland ixtiraaf waa gartay gabagabadaan joognaa guuleed dhowr mas'uul oo Soomaaliland ah oo hadlay ama xitaa aan la hadalnay waxay sheegeen arrinta Israa'iil xitaa ka hor inay diyaar u yihiin in maxkamad geeyaan Soomaaliya dawladda Soomaaliya arrintaasi marka ma kula muuqato inay ku dabayn karto mise jirta xagga qaanuun in maxkamad la isku dacweyn karo de wax xumalaynayaa lawyer baan ahay reer Soomaaliland waan khaskeyguna waa qaanuunka caalamiga basically dawladaha la qotin waxa markama doonayo inaan ka hor dhaqo laga yaabo inaan ii baahato dawladaydu inaan tala ka siiyo arrimahaas oo kale laakiin waxaan ku ogahay anigu Soomaaliland inay diyaar u tahay mar walba maadaama ay qadiimad mujtamac tahay oo dhowr iyo 30 sano soo socotay inay ka midho dhaliso wixii result yeesho ayaa loo baahan yahay taasina dadaalkeedii markaa uu socdo sababta aqoonsigu loogu dadaalayo cadaadiskii faraha badnaa intii dambe Soomaaliland ka saaray dhinaca Soomaaliya dabcan wuu dedejiyay Soomaaliland inay u garab waaqsato inay tahay inay result degdeg ah hesho marka way dadka reer Soomaaliland aqoonyahankooda dadkooda sharci yaqaanadooda way balance gareynayaan ama way miisaankay saarayaan optionska siyaasiga hadba ka ugu wanaagsan la qaadan karaan marka la qaadanayo waa gartay waxaan ku soo gabagabeynayaa marka Soomaaliya Somaliland dhowr jeer bay wada hadleen Djibouti waa ugu dambeysay sanad ka hor inkastoo lagu kala tagay xagga qaanuunka intii meel kale isla aadi lahaa ma kula tahay in la isla fiirin karo oo la oran karo waxaana sharci ku leedahay waxaana sharci ku leedahay saas arrinta ku dhamaato
meesha doonta ha noqotee ma kula tahay arrintaas inay hadda la joogo mise waa soo xirmay albaabkaas mar walba wadada ugu fudud bay ahayd adig dibtu waxay ka taagneed muqdisho mar rabo may arkaynin inay arkan si serious u gasho sababa waxa kamid ah dabcan dawladda muqdisho joogta mar walba dawladda amaan la dooran ama dhulkii wada xukumin marka laga yaabo inaanay jeclayn inay hoos ugu daadigto arrimaha qadiyadda marka hadda